kulanti waxaan idin lahaantiinba meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyihiisa magaalada tan London waa barnaamij gaar ah oo aanu ku falanqeynayno weerarkii gaadmada ahaa ee ay kooxo dhagar qabayaal ah oo iyagu ku labisan dareyska ciidamada qalabka sida ku soo weerareen Golaha Shacabka Baarlamanka Federaalka Soomaaliya weerarkaasi ayaa waxa fashiliyay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo iyagu iskaashanaya waxa uu u dhacay sida tan howlgalkan oo qaatay dhowr saacadood ayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee gaashaan oo gacan ka helaya kuwa AMISOM waxa ay markaasi ku qaadeen xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho oo weerar fashilmay ay ku soo qaadeen maleeshiyada argagixisada al-shabaab ciidanka sida gaarka u tababaran ee gaashaan iyo kuwa midowga Afrika ayaa si taxadar iyo xeelad ay ku jirto waxa qayb kamid ah dhismaha Golaha Shacabka ay uga soo galeen dhinacyo kala duwan iyagoo isla markaasina liishaamiyay maleeshiyad naflacaari ah oo qayb kamid ah dhismaha ku jiray iyagoo midna halkaas ugu toogtay ciidanka dawladda Soomaaliya ee gaashaan iyo kuwa midowga Afrika oo hub casri ah watay ayaa ku guuleystay in ay gudaha u galaan dhismaha oo markaasi qaybteeda sare ay saarnaayeen maleeshiyad ka tirsan al-shabaab waxaana maleeshiyadu ay bilaabeen durbaba in ay ka cararaan qaybaha dhismaha ay ugu jireen kadib markii ay u adkeysan waayeen rasaasta kaga imaanaysa dhinaca ciidanka dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM waa kana mid kamid ah maleeshiyadii weerarka ku soo qaatay xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho maanta oo ay dhaawac halis ah u geysteen ciidamada dawladda Soomaaliya waxaana uu gashan yahay dareyska ciidanka dawladda Soomaaliya iyadoo laba kale oo ka tirsan maleeshiyadkii la socday oo iyaguna labisan dareyska ciidanka dawladda oo ka soo cararay rasaastii ay ku soo furiyeen ciidanka gaashaan iyo kuwa AMISOM labadaas oo iyana mid kamid ah uu dhaawac yahay waxaana ay ka soo carareen qoryihii ay siteen qayb kamid ah dhismaha ayaa durbadiiba waxa lagu arkayay qaar kamid ah maleeshiyadii argagixisada ee al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday xarunta Golaha Shacabka oo ay toogteen ciidanka dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM waxaana ciidanka dawladda gaar ahaan kuwa gaashaan iyo sidoo kale kuwa AMISOM u suura gashay in dhammaantoodba ay toogtaan maleeshiyadkii weerarka ku soo qaaday xarunta Golaha Shacabka isla markaana ay halkaas ku fashiliyaan weerarkii ay doonayeen iyagoo ku guuleystay in ay soo gabagabeeyaan howlgalkii markaas ay kula dagaalamayeen maleeshiyadka argagixisada ee al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho waxaana goobtaasi tagay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo uu kamid yahay ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga qaranka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed wasiirka warfaafinta iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda weerarkaasi gaadmada ahaa ee ay soo qaadeen kooxaha dhagar qabayaasha ayaa waxa fashiliyay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya iyagoo gudaha ugu galay isla markaana baabi'iyay dhammaan kooxahii ka socday kooxda al-shabaab waxa durbadiiba halkaasi gaaray ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed mudane Cabdiweli Maxamed iyo wasiirka amniga qaranka mudane Cabdikariin Guuleed oo iskaashanayay iyo ciidamada qaranka ayaa halkaasi waxa ay ka sheegeen in maaragtay dhibaatadan ay tahay mid aan loo adkeysanin ra'iisul wasaaraha ayaa khaasatan waxa uu tilmaamay kiiskan la baaray hadii uu cidu ku xaqiiqoobo in maxkamad la soo taagi doono isla markaana sharciga la tiigsan doono sidoo kale waxa halkaasi tacsi soo gaarsiiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu jooga wadanka South Africa hadaladiisina waxa kamid ahaa sida tan bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wasalaamu ala rasuulillah dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku noolyihiin waxaan u dirayaa tacsi alla ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaanyaradii geesiyaasha ahaa oo shuhadada ahaa oo maanta oo daafacaya dadkooda iyo hay'adaha qaran ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku geeriyooday ayaan tacsi u dirayaa ehelkoodii iyo dhammaan ciidamadii ay ka tirsanaayeen iyo ummadda Soomaaliyeed geesinimada oo muujiyay Kabtan Daahir Maxamuud oo hor istaagay baabuurkii qarxaya waxay tilmaamaysaa deegaanaanta iyo geesinimada iyo daacadnimada ciidamada ay qabaan sidoo kuwii kale ayagana ku geeriyooda ay dagaalamayo oo difaacaya baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaankeennaba xildhibaanada Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta qaranka meesha ugu weyn fadhiyo daafacaya ku geeriyooday ayagana sidoo kale tacsi ayaan u dirayaa oo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo magaca dawladda iyo magacaygaba waxaan leeyahay
meeshii ugu fiicnayd oo qof biniaadan iyo sababtii ugu fiicnayd oo qof biniaadan ku beeriyateen daacadnimada ciidamadeena qalabka sida guud ahaanteed ay dowladnimada Soomaaliya daacad u yihiin ayay tilmaam u tahay waxaan leeyahay dhammaan samir iimaan Allah naga siiyo ayagana meel qabow Allah mariyo intaas kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego shabaab olaakiisu mar walba waan garanayna iyo sida ay tahay iyo sida ay u doonayaan inay dowladnimadeena dantaalaan inay dadkeena niyad jebiyaan laakiin waxaan leeyahay dadkeena ma niyad jebin karaan dowladnimadeena ma dantaali karaan dacdadaas dhacday dowladda Soomaaliya waxay ka baranaysaa iyo kuwii hore oo dhacay oo dhan waxbaan ka baranaynaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego kalsooni buuxda inay ku qabaan dowladooda iyo ciidamadooda intaba xilligan oo kale oo la dhiban yahayna waa xilliga isku duubnaan iyo midnimo loo baahan yahay waa xilli aan oo cadowga kaga faa'iideysto ummadda waxay kala qaybiyeen waxay ku kala qaybsami karaan inuu keeno ma kala qaybin maysaan leeyahay dacdadii maanta dhacday iyo kuwii kasii horreeyay oo dhanba waxaa kaloo raacaa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga gudbiyo u sheego saacadaha soo socda haddii ilaahay yiraahdo saacadaha soo socda isbedel ayaa dhacaya isbedelkaas oo dhow ah oo kuwa kaloo badan ay soo xigi doonaan tallaabo cad ayaa mas'uuliyiinta dalku ay qaadi doonaan dowladdu ay qaadi doontaa isbedeladaas waa bilow kuwa kaloo badanna way ku soo xigaan waxaan u baahannahay waqtigan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed intaba waxay u baahan yihiin midnimo isku duubnaan iyo kalsooni badan oo ay isku qabaan ayaga dhexdooda iyo ay ku qabaan hogaankooda siyaasadda oo ay ku qabaan ciidamadooda amniga ee qalabka sida intaas ayaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego caawa aniguna safarkayga aan ku joogo South Africa waan soo gaadhiyey maalinta Isniinta gelinka dambe inaan imaaday ahayd beri subaxdii arooryada horaan soo baxayaa beri subaxna gelinka horeba waan joogaa magaalada Muqdisho haddii alla yiraa waxaan leeyahay safarkayga waxaan usoo gaadhiyeyna arrimaha degdega iyo duruufahaas xildhibaanadii iyo ciidankii ku dhaaqmay meeshan haddii alla yiraahdo dowladda Soomaaliya way u istaagaysaa caafimaadkooda iyo badbaadintooda caafimaadkooda dhaawac gaaray u baahan gurmad degdegana waa loo samaynayaa wixii kalena Allah caafiyaan leenahay intaasaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed gaarsiiyo waxaan leeyahay waan guulaysanaynaa si kama dambaysa weli baan u guulaysanaynaa dacdooyinka noocaan ay cadowgu ay wadaan mana niyad jebin karaan mana niyad jebin doonaan haddii alla yiraa ciidamadeena iyo dowladeena iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duubanna shabaab way ka guulaysanayaan wayna ka soo harayaan xaqinka iyo ciidda lagu xaqaayo xaqinka dhamaado dhulkana uu soo haraa dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda waa dhulkii shabaabna waa xaqin si dhamaanayo waana dhamaan doonaan haddii alla yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale midnimo isku kalsoonaan dhexdooda ayaan ugu baaqayaa intii naga dhimatay mar kale samiriinaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu safar ku joogay wadanka South Africa isla markaana u tacsiyadeeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee difaacay xarunta Golaha Shacabka maanta weerarkii ay ku soo qaadeen kooxaha nabadeedka waxa uu sidoo kale sheegay madaxweynaha safarkiisa in uu soo gaabinayo oo uu dhawaan ama berritaba ku soo laabanayo dalka hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxa halkaasi isna ka tacsiyadeeyay kana hadlay gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliyeed hadaladiisina waxa kamid ahaa sidatan saaka ayadoo shaqadii socoto golaha shacbiga howshiisa wato waajibkiisa qaran gudanaya waxaa weerar ku soo qaaday nimankii oo nabadiidka ahaa oo damacsanaa in ay dhibaato u geystaan xildhibaanada iyo waxyaabihii ay ku talagaleen oo burburinta hay-adaha dowladnimada ay ku dhisan tahay ee golaha shacabka mahad ilaahay waxay damacsanaayeen ma noqon mahaddaasna Allah iska leh waxaana iska leh ciidamada Soomaaliyeed oo federaalka oo meeshaasi difaac xoog leh ka galay oo ka fashiliyay waxay ujeedooyinkii ay lahaayeen ammaan buuxda ayaan u jeedinayaa sida wacan ay maragtaa difaaca u galeen sida wacan ay u badbaadiyeen xildhibaanada taasoo mahad ilaahay
wax oo xildhibaanada gaaray ma jiro dhammaantood ayagoo nabad qaba ay badbaado qaba ka samata bixeen goobta dagaalka ay ku oogeen nimanka ayaga oo nabadiidka wax intii dhimatay oo ciidamada ka dhimatay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo inta dhaawacana allaha caafiyo xildhibaanadana intii yaroo dhaawaca fudud gaaray iyagana ilaahay waxaan ugu baryaynaa dhammaantooda uu gaarsiiyo caafimaad buuxda wax dhibaataa ma jiraan hawshan aan wadno waa hawl qarameed oo dowladnimadii lagu dhisayo weeyaan shacbiga ayaa noo ammaanaysaday ammaanad ay nagu tahay wax ay hawshayada iyo waditaanka iyo xilgudashada ay u dhimayso ma jirto weerar ma 10 weerar haday soo qaadaan shacbiga intii loo ballan qaaday waa wadaynaa waana fulinaynaa wax oo ay niyad jab inagu ridaysana ma jirto mana ka hakanayno waajibka qaranka ah oo muqaddaska ah waa godanaynaa in ilaa iyo inta Soomaaliya ay dawlad taagan iyada ay iska leedahay amnigeeda sugayso dalkeeda iyo gobonnimadeeda ay sugayso laga gaarayo kama gaabin doono insha Allah dhammaan intii ka geeriyootay ciidanka qalabka sida iyo ciidamada amisoomba ilaahay waxaan ugu baryaynaa in marka jannadii ka waraagsho ammaan buuxda ayaan magaca golaha shacbiga ugu jeedinayaa ciidamada qalabka sida intii ka geeriyootayna raxmad Allah siiyo intii ka dhaawactayna ilaahay caafimaad ha siiyo waa tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isaguna ka tacsiyadeeyay ciidamada qalabka sida ee halkaasi ku geeriyooday iyo kuwa ku dhaawacmay iyo sidoo kale xildhibaanada yar ee ku dhaawacmay halkaasi ugu dambeyntii sida halkaasi waxaa ka hadlay oo soo gabagabeeyay wasiirka amniga qaranka Soomaaliyeed mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isagu sheegay in ay tahay arintan arin fool xun oo maaragtay qarannimada Soomaaliyeed iyo shacabka badbaadintiisa wax u dhimaysa dhibaatada ay geysteen kooxahan nabadiidka ee weerarka ku soo qaaday xarunta baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan hadaladiisii kamid ahaa sida tan bismillaah walxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaad la wada socotaan falkii fuliynimo ee maanta oo ay taariikhdu ahayd 24 bishii shanaad 2014 abaar 11 iyo 20 daqiiqo ka dhacay baarlamaanka oo ay nabadiidku ku weerareen xarunta golaha shacabka waxaan ka tacsiyeenayaa geesiyaashii u dhintay difaaca qaranka si gaar ah waxaan u xusayaa Dhame Daahir Axmed Maxamuud oo isku dhigay gaarigii walxaha qarxa waday una horay naftiisa inuu badbaadiyo xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed falalkii argagixiso iyo weeraradii ka dhacay oo idil muddooyinka la soo dhaafay waxay ina tusayaan ina xusuusinayaan inay ciidamadeenu ugu guuleysteen baabi'inta iyo fashalinta hagardaamooyinka cadawga oo hadafkoodu yahay baabi'inta jiritaanka muuqaalka dawladnimo iyo ummadnimo muddadii 20 bilood ahayd ee aan xilka amniga dalka hayay waxaa shaki ku jirin inay noo qabsoomeen howlo waaweyn oo waxtar u leh amniga iyo xasiloonida dalka ayadoo xaaladda dhaqaale siyaasadeed iyo heerka farsamo iyo qalab ee aan ku shaqaynaynaba aysan marnaba u dhigmin ka hortagga qorshayaalka nooca cadow ee aan la dirirayn haddaba anigoo tixgelinayo xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka anigoo rajeynaya in xilkaasi culus ee aan hayay cid alle cidii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed uu garab ku siin doono gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adaha amniga shacabka Soomaaliyeed ee cid kasta ee gacan igu siisay gudashada xilkayga muddadii aan xilka hayay Cabdikariin Xuseen Guuleed waa mahadsantiin waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirkii amniga qaranka Soomaaliyeed mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isagu halkaasi ka sheegay in uu iska casilay jagadii uu u hayay amniga qaranka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in uu la shaqeyn doono cid allaalay cidii loo soo magacaabo dhibaatadan ay sameeyeen kooxaha nabadiidka ee wadanka u diiday in lagu noolaado ayaa waxa ay soo kordhaysaa maalmihii ugu dambeeyay iyadoo ciidanka qalabka sida iyo kuwa amisom iskaashanayana ay difaac xoogan ugu jiraan isla markaana
waddanka ka sifeynayaan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay dhowaan in la filayo in ay isbedel ka sameyn doonaan dalka guud ahaan dalka Soomaaliya, lana sugayo in la howlgeliyo waxyaabo badan oo la qorsheynayo haddii aan la idmo. waxaan idin leenahay anigoo ah Yuusuf Garabey iyo bahda stuudiyaha magaalada London, sidaas iyo nabadgelyo.